Asalaamu calaykum. Halkaan naga daawanaysaan waa Helena Media. Maanta waxaan kaga hadli doonaa meeshan taariikhda SRK ama Shahrukh Khan. Boqorka Bollywoodka Shahrukh Khan ama SRK jilaa aan koobnan filimada oo qura balse ah jilaa jaasta soo saara filim ganacsada iyo hanti labeentaba. SRK waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay jilayaasha ugu tirsan dunida. Hantidiisa ayaa ah in ka badan 600 oo milyan oo dollar. Waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu caansan dunida uguna taageerada badan. Shahrukh Khan waxa uu ku dhashay magaalada New Delhi 2 Nofeembar ee sanadii 1965. Wuxuu ku soo jeedaa qoys Muslim ah. Waxaa la sheegaa inuu yahay Muslim. Qoyskooda ayaa ah dabaqada dhexe. Aabihiis wuxuu ahaa qareen waxaana la oran jiray Maxamed Qaaj Khan. Hooyadiis ay ahayd garsoore waxaa la oran jiray Fatima. Ayeeyadiis waxay ula baxday magaca Cabdiraxmaan waxaana ugu yeeri jirtay ilaa uu ka sanjirsaday. Waxa uu la noolaa ayeeyadiis hooyadiis dhashay. Laakiin markuu dib ula midoobay hooyadii iyo aabihii, hooyadii waxay u bixisay Shahrukh Khan, macnaheedu yahay boqorka wejigiisa. Shahrukh Khan wuxuu waayihiisa waxbarasho ku soo qaatay iskool ku yaala Delhi oo la yiraahdo Sanjay Gupta. Khan waxa uu ahaa dhanka waxbarashada iyo ciyaaraha. Waxa uu yaraantiisa bilaabay ciyaarista kubadda cagta. Sidoo kale muddadii uu iskuulka dhiganayay wuxuu ahaa jilaa maskax haysta ardaydii iskoolka ku hayay. Wuxuu matali jiray jilayaasha Bollywoodka. Waxayna yaraantiisa isla soo qaateen waxay wada matali jireen Amrita Zain oo iyadana aakhirkii noqotay actrice weyn oo Bollywoodka filmakooda jila. Waxa uu dhintay aabihii kansar ku dhacay aawadii sanadii 1981. Hooyadii waxay u dhimatay macaan ama sokor ku dhacday sanadii 1991. Wuxuu guursaday Gauri Khan oo Hinduusiyada jecel 6 sano kala dhaxeeyay. Kadib sanadii 1991 waxayna leeyihiin 3 carruur ah. Wuxuuna sheegay inuusan si adag u aaminsan yahay diinta Islaamka. Sidoo kale uu ixtiraamo diinta xaaskiisa. Waxayna kala raacsan yihiin labada diimood. Sidoo kale gurigiisa waxaa laga heli karaa Qur'aanka iyo sanabada caabudaan Hinduusiyada. Gudagalkiisa iyo shaqadiisii ugu horeysay sharkii ugu horeeyay ee la siiyay waxa uu la siiyay 50 rubi oo qura. Wuxuu ku raacay tareen si uu soo daawado Taj Mahal. Wuxuu ahaa bilowgiisii dhabta ah ee fanaan. Filimkii Deewana ee soo baxay 1992. Tan iyo waqtigaasina waxaa iskaga dambeeyay guulo ka soo hooyay filimaan caan bixid oo dunida oo dhan ku baahay. Guulo uu gaaray cajriga jilinka ku hantay waxaa ka mid ah filimkii Baasikey oo ku matalay booska laadnimada. Wuxuuna ahaa aktarkii ugu horeeyay ee booska xun ee matala. Shahrukh Khan waa jilaa dadaal badan. Wuxuuna bilaabay shaqadiisa 8 subaxnimo. Waqti badan oo ku guda jiray fanka wuxuu helay 10 biladood Filmfare. 7 ka mid ah waa jilaaga ugu fiican waana jaaysada ugu sareysa ee jilayaasha ku naawilaan hanashadeeda. Shahrukh Khan kaniya ma ahan jilaa oo qura. Tan iyo 2000 wuxuu ahaa soo saare filim waana aasaasah hantiilaha 2 shirkadood oo soo saara filimaanta oo kala ah Unlimited Dream iyo Raja Dream Entertainment. Shahrukh Khan wuxuu haystaa dhalasho Imaaraadka oo qaatay sanadii 1908 iyo waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ganacsatada dhaqaalaha badan Dubai. Waxa uu Shahrukh Khan leeyahay aqliyad ganacsi hanti ahaan wuxuu haystaa in ka badan 600 oo milyan. Haddaba Shahrukh Khan ma ahan jilaa oo kaliya waa ganacsade dhaqaale badan ku leh dalal badan dunida. Hadda wuxuu ka tirsan yahay shirkadda Bollywoodka in ka badan 28 sano. Wuxuu weliba keenaa filmaan ku matalayo wixii markaa loo baahan yahay. Wuxuu ku dadaalaa hagaajinta muuqaalkiisa ama qaab dhismeedkiisa. Waxaan rajeynayaa inaad mowduucan wax ka faa'iideen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi